ummadda kale uu ilaahay abuuray caalam ku nool caalamka daafiisa Canada waxay ku yimaadaan in ka badan 100 hab oo kala duwan sabax wanaagsan soo dhawaada saaxiibayaal su'aal markaad maqasho hebel baa Canada tagay maxaa kugu soo dhaca qof waxa ku soo dhacaysa group Facebook ku tagay qof kale waxa ku soo dhacaysa wuxuu ku tagay marriage sponsorship qof kale waxa ku soo dhacaysa wuxuu ku tagay dheer ka dhacay ma wada dalxiis buu ku baxay hadda waxa wadiina Google waxaan leenahay tiri imsa hab baa lagu iman karaa Canada wuxuu soo saaray waxa lagu iman karaa in ka badan 100 hab oo wuxuu kala qaaday marka category qaybta kooda wuxuu ka dhigay economy visa oo horeeyo express entry-ga ama federal skilled worker visa dadka wax bartay la barto wuxuu guri provincial visa adaba Soomaalideenu waxay taqaanaan saddexdan ku soo sheegay haddaba haddii aad wax baratay oo aad aqoon-yahan tahay oo aad jaamacad bachelor degree gaadhay luqadda English kuna ay fiican tahay inagu waxaan nahay wada aqoon-yahan PhD aan luqadda English kusuna aan gaarin level 8 so if you cannot speak English and you claim you have a master degree, what does make sense? waxa ma tarayso waxaan saaxiib ku soo jeedinayaa inaad apply garayso federal skilled worker waliba qofka ugu nasiibka badan wuxuu noqonayaa qofka ku nool Kenya ama Djibouti because these people luqadoodu aad u fiican tahay Djiboutiyan wax ku hadlaan luqad English oo wanaagsan sidoo kale Djiboutiyan wax ku hadlaan luqad Farsi oo wanaagsan reer Kenya wax ku hadlaan luqad English oo wanaagsan marka I believe dhulka kale Soomaaliyeed inay luqadooda wanaagsan tahay